madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Kismaayo ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ay ka celiyeen wafdi uu hogaaminayo taliye cusub oo loo soo magacaabay ciidamada xerada 43aad ee dowladda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan gobolada Jubbooyinka wuxuuna sheegay in aan lagala tashan soo magacaabista taliyaha cusub ayaa lagu magacaabay General Ali Maxamed Maxamuud Bogmadow madaxweyne ku-xigeenka oo arrinkaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa goboleedka Jubbaland waxay kamid tahay xubnaha xubinta ka ah dowladda dhexe Soomaaliya goboleedka Jubbaland iyo hoggaankeedaba waxay mar walba u taagan yihiin inay Soomaaliya hesho qarannimadeedii iyo sharafteedii ayadoo taajirto waxa bilihii dambe soo tariyay hab dhaqan aan walaac ka muujinay oo taliska xoogga dalka nooga imaanayay oo ku saabsanaa qaybta 43aad iyo faragelin deegaanada ay ka sameynayeen sida qoraalka madaxweynaha loo diray waad ku arki doontaan taas oo aan qodobaynay baayado taajirtiba waxa jiray ayadoo dagaal lagu jiro taliyihii qaybta 43aad in xamar looga yeeray asoo dagaal ku jiro abaanduulihii maqan yahay la yiri safar tamashlahan dibad u tagaynaa hotelkan si deganow taas oo aad ugu xumayn waxa xigtay in shalay loo yeeray la yiri waa lagu bedelay saraakiishan iyo ninkan baad kaxaynaysaa xil ku soo wareejinaysaa arrintaas oo runtii wax tala aan laga weydiinin dowlad goboleedka Jubbaland aan waafaqsaneen heshiisyadii hore loo galay sidii heshiiskii golaha amniga qaranka London hore loo galay qodobkiisa 20aad oo ahay taliyaha xoogga haddii uu magacaabayo ama bedelayo taliyaha qaybta dowlad goboleedka la howlgasho inuu kala tashado madaxweynaha dowlad goboleedka si loo helo dad wada shaqayn karo isfahansan si loo fiiriyo balansiga ama habqaybsiga dadka wada degan oo qabiilka arrintaas taliyaha xoogga asoo wax tala ah ka weydiin dowlad goboleedka Jubbaland iyo hoggaankeeda asoo nidaamka waafaqsanayn asoo eegin balansiga iyo habka wax loo qaybsado ayuu tilaabada ku kacay kadib xiriir baan la sameynay wasiirka gaashaandhiga aniga shakhsiyan wasiir dowladda gaashaandhiga la hadlay dowladda dhan baa la hadalnay waxaan ku niri arrintaas maanta xilli wax la bedelo mujooga dagaal baan ku jirnaa arrintaas aan ka wada hadalna taliyaha xoogga noo yimaado ha nagala tashado inna ha yaraatay arrintaas waa iska dhiga tireen sidaa darteed ayaan u go'aansanay annagoo fiirinayna xagga ammaanka annagoo fiirinayna dagaalka lagu jiro baaxadiisa annagoo fiirinayna khalkhalka arrintaas ay nagu samayn karto in saraakiishii taliska xoogga ka socotay aan saaka dib ugu celinno xamar taa oo macnaheedu yahay inaan diyaar u nahay in madaxweynuhu arrintan soo farigeliyo wasaaradda gaashaandhiga soo farigeliso waxa khaldan aan ka wada hadalno khalad baa jiro hore u sheegnay ku celcelinay taliska xoogga taliyaha iyo baanduulihiisa ay ku dhaqmayaan taasan Soomaaliyana caawinin ciidan Soomaaliyeed uusan ku dhismayn cadowna nagula dagaalamaynin inay nagala hadlaan noo yimaadaan General Bogmadow oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya balse sanadihii dambe qurbaha ku maqnaa ayaa darajada janannimada loo dalacsiiyay bishii hore ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya balse arrintan ayaa imaanaysa xilli la isku diyaarinayo shirka arrimaha amniga looga hadlayo ee dhawaan ka furmaya magaalada Brussels waxaana shirkaasi ku wada casuuman madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo uu kamid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islam Axmed Madoobe Cabdirisaaq Al Cadaala Sab TV Kismaayo.